magaalada Horyaal waa deegaan dhawaan la aasaasay waxayna dhacdaa dhinaca waqooyi ee magaalada Buhoodle. waa deegaan ballaaran oo dhawaan la aasaasay sanadii bishii koowaad 16keedii 2018 sida idiin muuqato uu ku socdo dhismayaal iyo mashaariic horumarineed. deegaankan Horyaal waa magaalo ku taalla meel istiraatiiji ah, dhulkeeduna fiican yahay, isla markaana deegaan ahaan iyo degsiime ahaanba ay meel si weyn loo saamiyay tahay. waa magaalo ku fiican dhul beereedka. haddaba maraanu booqanay deegaankan cusub iyadoo xilligan uu Alle ku shubay raxmaadkiisa dhulku ku soo jiidanayo. taariikhda deegaankan Horyaal ka waramay qaar ka mid ah shacabka magaaladaasi. raxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa magaalada Horyaal. maasha Allah, dhammaantay waa nabad qabnaa. haddaan nahay reer Horyaal ka u horeysa sideeda kale dhammaantay waa nabad qabnaa, waa fiicannahay. dee xaaladuhu waa sidaa wey. harka bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa degmada Horyaal. waxaa ka soo jeedinayaa magaaladu de waa socotaa, waa dhismasaay, waa kuwa dhismihii iyo waxa weeye de guriyihii waa qabyalaayeen oo waa la dhisay. hadeerna dhismihii waa socdaa. dadka joogaana de waxa weeye waa ku wanaagsan yahay, waa nabad qaba. الله وبركاته. أهلا وسهلا يا المانتين. وحوي أهلكم وحن وش يجيا قبضوكتا يوحوي ذاتك تنين حلول بهاي مجال الملك كذا يلقط ريو وحوي ذاتك تنين عند تنين صح بتشوف دليل بالميل شو قام بالنسبة
sanada meelaha la deganaa si fiican dadka meesha jooga waxay qabsadeen dadkani waxay beereen qudaarta cagaaran sida qarihii oo halkan nooga muuqda digirtii casayd haroortii waxyaalaha xabuubtii waxyaalaha fudud roob ku baxa waxay u baahan yihiin in taageera khibrad dad xagga beeraha wala maaha marka waxay u baahan yihiin xoogaa khibrada in la siiyo iyo sidoo kale in la siiyo qalabkii wixii laga caawin karo cid kasta oo dadka danaynaysa wax ku caawin karta waxaan u baahanaa inay dadka dhiirigelin iyo tababarba ay siiyaan iyo wixii qalab ay ku caawin karaan sidoo kale biyihii way ku liitaan meesha oo haddan qudaartan waxay ku baxday ama beerahan xilliga roobka haddii xilliga roobka la dhaafo meelo ay biyaha celiyo male waa sida baraaga yar roon badnayn marka waxay u baahan yihiin meel wara haddii heli lahaayeen si wacan bay wax u qabsan lahaayeen dadkani barigii hore waxay ahaayeen dad xoola dhaqataada oo xoolaha iyo ka faa'iidaysta hadda xoolihii waa iska yaraadeen waa tii abaara caama oo gaar ahaan Soomaaliya oo dhan ka dhacay ay soo mareen waxay dadkii isku day bay sameeyeen inay haddaba xoolihii dhammaadeen ay beerihii falaan si wanaagsan bay hadda wax wadaan isku day fiican bay sameeyeen waxaan soo marnay ilaa 28 beerood meelahaas oo ku dhawaad ah 28 meelahaas oo la xagaafay oo qaar marka la qodayo oo la xagaafayo qaar siidkii la geliyo qaar si wacan u baxaan sida tan oo kale waxaan ugu baaqnaa cid kasta oo danaynaysa inay dadka waxay ka caawin karaan inay ka caawiyaan sidoo kale qurjoogta deegaanka soo jeeday dadka gobolada jooga inay Soomaal gashadaan deegaanka oo dadkan shaqo abuur iyo wax u sameeyaan oo Soomaal gashadaan oo waxay ku caawin karaan dadkan ku caawiyaan dhiirigeliyaan aadna waa idin salaamayaa والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkani waa deegaanka Horyaal dhulkani waxa weeye waa dhul aan ugu talagalay beeraha runaantii waxaan rabnaa hadii aan leeyno mashruuc beero iyo mashruuc xoolo dhaqato inaan isku wadno marka hadda sidaan aad aragtaanba waa wuxuu dhulkani u oodan yahay beero inkastoo qalabku uu aad u yar nacaysan yahay oo qalabku yar yahay haddana insha Allah hawlgalkeeda baa lagu jiraa dhulkaas oodan oo dhan waxay u oodan yihiin beeray u oodan yihiin waa ilaa waxaan ka oodnay ilaa iminka 28 beerood bay marayaan inta hadda aan soo kormeeray aan soo maray hadda waxana lagu riday waxana la rabo in la taab geliyo marka insha Allah magaalada waxaan rabnaa inay noqoto magaalo muxuu ahaayeeto xoolahana lagu dhaqdo beerahana lagu beero waxyaalaha la doonayo in la beero aan taabkeeda ku jiro waxa kamid ah galleyda iyo digirta iyo qaraha kulli hadda iminka inta waanu waxba ka soo baxay oo hadda waanu wadnaa qalabkuna waa naga nacaysan yahay marka hadii aanu helo qalab runaantii waa dhul wax ka soo baxayaan oo aad deegaan u cajiib oo beeraha ku fiican sida ciidda dhoobeyda oo kale uu leeyahay dhulka beeraha ku fiican marka insha Allah hadii aan leeyno waxaanu dadka taakuleeya xagga beeraha iyo dhaqaalaha waxaanu codsanaynaa wixii nagu caawin kara qalab beereed ama siir beero in ay hadii aan leeyno insha Allah nagu caawiyaan oo nagu hawlgeliyaan ilaa qurba joogta saasaan ka codsanaynaa marka waxa weeye waa dhulkaas aad u cajiib weeyaan waad aragtaan dhulka cagaaran ee beeraha ku haboon oodan ilaa iminkan waxaan soo kormeeray ilaa 28 beerood oodan marka waxana hadda la gelgeliyay sidii hadda aan tusayay marka insha Allah uun xoogaa dadku wacyi gelina way u baahan yihiin muxuu ahayd seminar xagga beeraha ku saabsan si wacan bay u rabaan oo muxuu ahaayeeto way rabaan oo hadii seminarka dadku beer xoolo dhaqato ahaan jiray beeraley ma ahaan jirin marka seminarka beeraha laftooda waa loo baahan yahay marka insha Allah hawlgalkaas aanu ku jiraa hadii aan leeyno waa wadaynaa dadkana waan ku baraarujinaynaa inay wax beertaan oo wax tabcadaan waxaan codsanaynaa in hay'adaha wixii xiriir la leh ay nagu caawiyaan magaalada Horyaal weeye inay nagu caawiyaan oo wax nagu soo taraan marka insha Allah saas weeyaan dadku majority dawad garanaysan xoolo dhaqato ahayo dad beereed ma ahayn laakiin hadda waa la ilbaxayaado qaabkii xoolaha waxa la gelinayaa qaab beereed iyo xoolihii wixii ka hadhay oo la isku wado marka insha Allah saasaanu rajaynaynaa hadii aan leeyno waana idin salaamayna meel kasta joogtaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
dambeyntii deegaankan ayaa waxaa loogu baaqayaa qurbo joogta inay maal gashadaan deegaankani dhinac kasta. Ibraahim Cabdiqaadir Jabaan.